bishii la soo dhaafay ee 2021 waxay ciidamada ilaalada madaxtooyada Puntland oo ay galbinayeen madaxweyne Siciid Dani ay rasaas ku fureen gaari yar oo ay wadatay ruux haweeney ah oo dhaawac halis ah ka soo gaaray rasaastaasi, taasoo markii dambe ay marxuumadu u dhimatay. marxuumada oo lagu magacaabi jiray Maryan Axmed Caato waxa ay ka mid ahayd shacabka degan magaalada Garowe. dilkan ayaa dhacay xilli habeenimo ah madaxweyne Dani uu ka soo laabtay magaalada Qardho, halkaas oo uu ku kala bixiyay safar gaaban oo isugu jiray dalxiis iyo ololaha doorashada Puntland oo dhowaan urur siyaasadeed iyo maamulku hirgeliyeen ay ku tartami doonaan doorashada Puntland oo sanadkan ka qabsoomi doonta maamulkaasi. wararkan helayno waxay sheegayaan in ciidamadu ay ka shakiyeen baabuurka marxuumad Maryan Axmed Caato wadatay, kaasoo la sheegay inuu soo kala dhex galay qaanyadii galbinayay Siciid Dani madaxweynaha Puntland. dad goobjoogayaal ah oo ku sugnaa goobtii ay rasaastu ka dhacday ayaa sheegay in askarigii rasaasta furay iyo ciidankii uu ka tirsanaa ay socodkoodii iska sii wateen iyadoo marxuumadu ay dhiig baxayso. shacabka ku nool caasimadda Puntland ee Garowe ayaa dilkan foosha xun ka xorooday, waxayna Siciid Dani ugu baaqeen inuu u soo gacan geliyo askarigii gacan ku dhiglaha ahaa ee dilay marxuumad Maryan Axmed Caato. dhinaca kale, gaashaale sare Jeneraal Sheekh Umar oo ah sarkaal sare oo ka tirsan ciidanka kumaandoosta danab ee dowladda Soomaaliya isla markaana u dhashay Puntland ayaa idaacadda raadiyo Dhagmaal u sheegay in marxuumad Maryan Axmed Caato ay u dhimatay dhaawacii rasaasta iyadoon helin daryeel caafimaad oo degdeg ah kadib markii loo waayay irbad qiimaheedu tahay $1.5 oo keliya. Khaliif Waade, Muqdisho, Soomaaliya, idaacadda Dhagmaal.